Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelka Shotkin Gorsame. Maanta waxaa idin wada videogi aan hore idinka ballan qaaday oo aan rabay inaan idinku faahfaahiyo sida loogu baaso mise qaabka loogu keeno citizenship testiga Canadian-ka ah 20 out of 20. Horta citizenship-ka intaanan gudaha u gelin, who is eligible programkan qofka laga rabo inuu exam-kan qaato qof nooca ah. Haddii aad tahay qof waayeel ah ee da'daada 55 sano 54 ilaa ay ka koreyso, imtixaanka lagama rabo, procedure kala leedahay. Haddii kale cidlada kale aad oo imtixaankan inaadan sameynin ku diidayda aad qabtidna ayadana channel kala leedahay oo procedure kala la leedahay. Dadka hadda aan rabo inaan u sheego marka yaaba aniga dadka imtixaanka inay sameeyaan laga rabo aan wax u sheegayo. Imtixaankan aniga intaan gelin ka hor cabsi badan ay iga haysay. saddex bari afar bari inaan ka dawareeganay aan lahaa alla kana source kan raadi information aan raadi wax Soomaali information fiican waan waay alxamdulillah hadi ilaahay uu guuleysay dadaal ka badan marka waxaan dhahay waxaan aas sameysay dadkaada la wadaag si ayagana maxaa laga yaabaa qof adiga camal haday sa wararsan uga faa'iida laga yaabaa bal wax ka samee soo marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago maanta qaabka aan isu diyaariyay intaan imtixaankaas gelin iyo waxyaabaha iga caawiyay iyago document ahaan waa idin wadaagi doona iyo wax walba ku saabsan marka waxaan rabaa intaan aan hadalka ka boobin waxaan diyaariyay PDF document ah oo 32 page ah PDF kaas waa summary of notes aan ka diyaariyay summary ah wuxuu kaloo wataa guidelines aan waaninayo meelaha yani focus ka saar meeshan laga maro ama waxa laga rabo waxaan samee ku jirto waxa kaloo ku jira 100 selected questions su'aalo aan u fikiray oo aan khibradeyda iyo intii information raadiska aan ku jiray su'aalaha u fikiray oo 100 xaba ah iyo answer koodana wuu wadataa documentigaas documentigana wuxuu yaalaa linkiga hoos insha Allah marka yaan hadalka idinka boobin I will also waxaan rabaa had inaan idinkii kale documentiga inaan one by one aan la dul maro meelaha ugu muhiimsan inaad iska fiirisid waxyaalaha laga rabo inaad fiirisid waxaas dhanba documentigaas aan ku wada qoray insha Allah warkeen kugu boobin ee documentiga ina geey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guys markale soo dhawaada waa kana documentiga idinka sheegay waxa ugu magac daray how to score 20 out of 20 on your Canadian citizenship test. Documentiga ana diyaariyay aniga khibradeyda waaye su'aalahana waxaan aan soo diyaarsaday waaye ana raadsaday marka documentiga aan rabo step by step insha Allah linkigeedan hoos soo dhigayaa hoos ka heli doontiin qof walbana they can access everyone can access free way lacagna laga ma rabo waxa igu caawisaa leebis in subscribe la channelkiisa intaas la igu caawi so documentiga marka waxa ugu magac daray xaaladaha how to score 20 out of 20 in your Canadian citizenship test step by step guided by Shotkin Gorsame marka waxaan ku leeyahay a perfect score of 100 is possible take a breath marka documenti wuxuu ka hadlayaa ana qofka la sheekaysan ana kula hadlayo waxaan leeyahay camal I know Canadian citizenship test can feel overwhelming with all the dates names and historical events but I'm here to tell you the first hand scoring a perfect 20 out of 20 is possible. I recently sat for my exam and walked out with a perfect score. I am not a historian and history masameeya and I did not spend months memorizing bilooyin iguma qaadan waxan afar bari ay u qaad aniga maximum so documentiga aan ka hagaajiyay marka xal raba mid ugu muhiimsan aniga idinka kalena waxa waay book waxa la dhahaa jiro Discover Canada meesha waa website ku yaala online way free way asoo nood ahaan soo dejisan kartaa mise online kiisa ku qarsan kartaa bookaas marka waxaan rabaa step golden rule ugu horeeyo waxa waay first bookaas in dul martid you will do yourself a lot of favor hal bari ka badan kuma qaadanayso bookaas dul mareysa يعني أنا حفظت مدن مريسد مسكحة بس ل بيج كان انتبه لأن هذا بس وحيالا بدنا بوكاس كجرو إن رسيدا إن Canadian history وكجرو إن democracy وحصلنا على حلا بوكاس صرت إن دول مرتد مستوى بوكنا discover كندا الله واركوسا سيد من سكرين كم مكتبه إن because سؤالها دن أسرع على كنا key areas كنا مستجلس سكودي واقع point 2 أنك key areas marka maxaa waay dad waxa jira caan ah hadda John Cabot nin la dhahay iyo
macdonald iyo raggaas inaad iska sii garan kartaa laga rabaa. buuggan way ku yaalaan, waa magacyo caan ah oo testigana ku imaada masta maba laga waayaba. waxaa World War One waxaa jira Louis Real in la dhaho, waxaa la badanaa jiraan dagaalkii 18 to 10 asagana way jecelyihiin badanaa. 18 to 10 lagu dhihi maxaa dhacay dagaal Mareykanka iyo Canada, waa Canada markay xuduudeeda jarinaysay ee Mareykanka ay ka xoroobeyso. marka waxyaalahaas reerka ma arkan oo detailski release leh iska xifdi inta kale, laakiin waxay u badan yihiin responsibility iyo waxyaalahaas lagu weydinaa iyo rights of Canadian citizenship. tricky ma examka straight forward waa meelahan boldiga aan saaray dhan iska fiiri. marka step 3 inta step 3 loo gudbin waxaan jeclaystay inaan noteska aan idin sheegay aan idin dhexgeliyo. waa kana noteska short king warsame golden notes to pass Canadian citizenship Allah. waxaa waay marka taariikhyaha crucialka ay eventyada iyo meelaha u maleey inay muhiim yihiin aan soo qaatay. waxaan u kala qaybiyay historical dates and foundation. arkoosa waa dul mari kartaa waxaa dhacay 1763 maxaa dhacay inkastoo laakiin date xifdi aan lagu dhehaynin, haddana waxyaalaha dhacay inaa iska muhiim inaad fiirisid. waxaa lagu leeyahay camal 1840 waxaa dhacay, waa kaas arkoosa kulligood. waxaan kaloo ku daray historical figures and heroes, dad waxaa jira dee waddan kusoo halgamay, dadkaasna inaan taqaanid ayagana muhiim waay. John Cabot, Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Laura Secord, qoftaan 19 miles in ka badan qoftii lugaysay. haddii lagu weydiiyo qofka lugayay 19 ka badan si uu ugu taxadaro inay ciidanka Canadianka la soo weerarin, waxaa la dhahaa Laura Secord. dadka aan ku xisaabtamay ku jirta haddii lagu kan xana Laura Secord, hadaa maqlo yaa lugayay Laura Secord waay. haddii maqlo yaa map of Canada draw garay John Cabot, first prime minister MacDonald. so markiis waxaasna iska sixbisa laga raayagna wax weyn maaha. waxaa kaloo fiirinaynaa government structure and legal rights, ayadana waa very important in iska fiir system governmentig meequu ka kooban yahay, baarlamaanka meequu ka kooban yahay, who is the head of state, who is the head of government. waxaas dhan waa iska easy, way ku wada jiraan. documentigana kaa caawinayo, magacyadana waa kuwaasa. capital city of Canada Ottawa. waa kaasa. the last thing regionskan ayagana inaad iska fiirisid waa economic iyo geography, like Alberta camal waxaan magaalo madaxdeeda intee waay, Quebec magaalo madaxdeeda intee waay, Ontario magaalo madaxdeeda intee waay, New Brunswick magaalo madaxdeeda intee waay. waxaas ayagana iska fiirisid waay iyo waxyaalaha ay caan ku yihiin. waxaa kaloo symbolisk ayagana national symbolisk inaad iska fiirisid waay. magaca Canada intuu ka imaaday Kanata ali jiray waa village. Kanata hadaa maqashid waa village, waxay ka imaatay Iroquois language sida meesha ay ka cadba. colorka Canada, calanka Canada meeqo color ka kooban yahay lagu leeyahay. haye summer sportska Canada lacrosse, winter hadaa maqashid ice hockey. waxyaalahaas very easy waa examkuna lagu keenaa. waa kaas, that's it. and then waxa kale aan ku xiro test your knowledge. section 3 maxaa waay test your knowledge, maxaa waay waxaan waan soo akhrisatay 3 beri 4 beri maximum 4 beri hadaa gelisid test knowledge-kaaga inaad test garisid waa muhiim, waa laga maarmaan. marka knowledge-kaaga test garee su-aalahan 100 ah 100kan hadaa ka dhex baxdid banaanka taalaa. su-aalaha waxaa laga soo diyaariyay Discover Canada, waxay kaabagaroonayn the rights and responsibilities of the citizen everything. waxaa laga rabaa marka 5 out of 20 inaad keentid 75% hadaa keentid waa baasaysaa. examkana in Boston ahaan jiray, hadda laakiin waxaa waaye online laga dhigay 45 minutes laga dhigay. marka su-aalaha waa kuna hadaa fiirisid waa dul mari kartaa true or false u badan yihiin, qaarna multiple choice waay. so su-aalaha waa kuwaas ilaa section 5. hadda sectionka markuu dhamaado answerkiisa daba yaala. waa kana fiiriya answerki key waan ku daba yaaray, su-aal walba iyo meesha ka imaatay answerkeedana waa kaasa. marka saasa idin rajeynaya guys, insha Allah waa guuleysan doontiin. videogan waxaan rajeynayaa inuu ilaahay haddii hataa aan dhinto inuu sadaqatul jaariya ii noqdo. waxaan rabaa qof walbo yani muslim walaalka yahay inuu ka faa'iideysto Canadian oo isku diyaarinay Canadian citizenship. idinkan waxay ugu caawisin ciwaanka subscribe iyo Sara. thank you so much.